السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا channel كينا روان channel وأبو روان هبين كهيدين وعنادو ميلول بو أجوكتان إن قصة عاوان إذين ودنو وحي قصيصا إن دادك مشعودين تا أما سحرو لياشا إن inta badan waxaa jira dad ku dhaqma sixirka walciyaadu billah ilaahay qof walbo oo uu ka ibtileeyay ilaahay ka caafiyo dadka ashraarta ah mushacwadiintana ilaahay ka qabto subxaanahu wa tacaala ummadda. qisadan waa qiso xaqiiqa ah. waxaa jirtay qof dumar ah. qofta dumarka ah qisadeeda waxay ku bilaabatay waxay soo wacday janaalkan iqra. markii ay soo wacday janaalka iqra waxay la hadashay sheekh oo waxay tiri sheekhow waxaan rabaa in aan arrin kuu sheego arrintaas oo aan rabo in aad iiga faa'iideyso. sheekhow wuxuu yiri soo dhawow. waxaa dhacay waxay tiri sheekhow waxaan ahay qof tagay beydka ilaahay 7 mar. 7 marna waxaa dhacday ma aan arkin kacbada. waxaa dhacday in waxay tiri waxaan arkayaa dadka tawaafaya kacbada geeskeeda laakiin waxba ma arkaayo. waxaa kaloo dhacday bay tiri in aan awoodi kari waayey in aan hadlo oon dadkii wax u sheego intaan kacbada joogay. waxaa dhacday marka banaanka markaan usoo baxo waxaa waaye waan hadli karaa wax walbana waan arki karaa laakiin kacbadii waan arki waayey. arrintan waxay u dhacday 7 mar oo aan beydka ilaahay tegay. waxaan rabaa sheekhow in aad ii macnayso. sheekhi wuxuu yiri subxaanallah maxaa ka shaqaysaa buu yiri. waxay ku tiri waxaan ahay gabadh nurse ah sidoo kale waxaan dhaqaa meydka dadka dumarka ah. wuxuu weydiiyey sheekha maxaa samaysay ma dambi weyn baad gashay ma qof baad dishay. waxay tiri maya. ma zinaad ku dhacday. waxay tiri maya. wuxuu weydiiyey marka shaqadaada runta ah maxay ahayd inoo sheeg. waxay tiri sheekh aniga waxaan samayn jiray waxaa dhacday in duruufahayga iyo nolosheyda ay iska adkaayeen. waxaa dhacday in aan samayn jiray in maxay ahayto aan meydka dhaqo. dhaqaale la-aan darteedna waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah qof dumar ah ay lacag badan ii keentay kadibna ay igu xirtay ninkaasoo ii keeni jiray waxyaabahan sixirka ah si meydka la dhaqaayo afkiisa inta u geliyo aan ugu tolo. sheekhi wuxuu yiri subxaanallah maxaa kugu kalifay arrintaas. waxay tiri sheekhow arrintaasan sameynayo waxaan rabaa in aan hadda ku weydiisto sida aan u toobad keeni lahaa. ilaahina toobadeedu wuu aqbali la'yahay. 7 marna waxaan isku dayay in aan xaj ka tago. sheekhi wuxuu yiri ashrakti billah ilaah baad ku shirkisay marka ma awoodo si aan kuu dhaho waad ku toobad keeni kartaa. waxay kaloo tiri iyada ninkaas muddo ayuu waxaa ii keeni jiray ilaa 90 qof oo meyd ah ayaan waxaan geliyey afkooda sixir. qaarkoodna waxaan gelin jiray bay tiri farjiyadooda walciyaadu billah. sixirkaasu ah sixir al-aswad ama sixirka madow qofkiisa uu baaba'o mar walbo ay cunto qofkaas jirkiisa dixriga ama duudka ku jiro qabriga markasta uu qaniino qofka ama jirkiisa uu cuno qofka kale maskiinka ah ee la sixirayna dhibaatooyin badan ayuu kala kulmaa. waxaa dhacday marka qofkii dumarka ahaa sheekha in uu ku yiri bal ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu toobadaada ku aqbalayo adigaa og albaabada raxmadna waa furan yihiin. marka wax oo jawaab aan kaa siinayo arrintaas ma laha.
waxaa dhacday isbuuc kadib ayaa waxaa telefoonkii soo wacay shiiqii oo tv-ga fadhiya, wiil ay dhashay qofkii dumarka ahaa ee soo wacay tv-ga. wuxuu yidhi sheekh, waxaan ahay wiil ay dhashay maamadii kusoo waceysay isbuuc ka hor ee ku lahayd kacbada. waan arki waayey anigoo 7 mar xaj ka tegay. maxaa dhacay buu yidhi. kheyr sheekhu wuxuu yidhi, arrin baan rabaa in aan kaala hadlo oo aad iga qanciso amaba aad iga shaafiso. sheekhu wuxuu yidhi, soo dhawow. wuxuu yidhi, horta hooyaday way dhimatay, ilaahay ha u naxariisto. balse waxaa dhacay hooyaday markay dhimatay, qabriga markaan keennay oo dadkii ila soo qaadeen, waxaa dhacday markastoo aan qabriga galno si loo dhigo dhulka ama hooyaday luxudka loo dhigo, qabriga wuu isku imaanayay oo ciriir ayuu noqonayay. markii dambe waxaa dhacday buu yidhi dadkii in ay daaleen oo igu dhaheen, niyo hooyada wixii ay samaysay anaga ma garanayno. dadkii dhan ay iga soo dhaqaaqeen. waxaa dhacday yidhi inaan iska ag fadhiistay meydkii aan meesha isaga ooyey. waxaa isla markii soo baxay buu yidhi qof aad u dhalaalayo, qof cad ah, dharkiisuna aad u cad yihiin. waxay ugu yiri buu yidhi, istaag, ka kac meesha, dibna ha usoo jeesanin, orod ka dhaqaaq meesha. wuxuu yidhi cabsi badan iyo waxbaa i galay, waan dhaqaaqay. markaan baxay kadibna waxaa dhacay in waa hooyaday, waa qof aan jeclahay, isoo rabaayadaysay, uurkii igu soo qaaday, i dhashay, i foolatay. waxaan awoodi waayey buu yidhi in aan meeshii hooyaday ee taalay iyo shaqsigan ileh ka dhaqaaq meesha. waxaa dhacdu yidhi inaan sii jeestay, aan fiiriyey hooyaday meeshii aan uga soo dhaqaaqay. waxaa dhacday buu yidhi marka in sharaara amaba holac cararayo uu samada ka yimid, hooyaday uu gubay. waxaa sii dheer midaas, wuxuu yidhi wejigayga calaamad ayuu ku reebay, kuleelkii holaca ayaa wejiga iga gubay. waxaan ka baqayaa buu yidhi marka in ilaahi subxaana wa tacaala arrintaas aniga dembi aan ku yeesho. wuxuu yidhi shiiqii isagoo wiilkii yaraa niyadda u dejinayo oo u sheegayo, wuxuu ku yidhi hooyada waxay kugu soo korisay maal xaraam, marka maalkii xaraamta ahaa ayaa lagaaga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu kaaga masaxayay dunuubtii dhibta kusoo gaartay. laa calayk, wax problem ah ma jiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala bari, ilaahay subxaanahu wa tacaalana hooyada u bari. waxaa muddo kadib haddana arrinta ka hadlay sheekh kale oo sheegay in qofta dumarka ah ee u timid, ee gurigiisa ugu timid, waxay ku tiri, sheekhow, aniga waxaa dhacday in aan qof duruufaysan ahaa. waxaa jiray wiil aan dhalay iyo 2 gabdhood, gabdhahaygii wax aan ku guuriyo iyo cid iga guursataan waayey. waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah, isbitaalka waxaa timid qof dumar ah oo ay la socdo, oo uu la socdo qof nin raga uu la socdo. waxayna igu tiri, shaqo ayaan ku hayaa, shaqo aad u wanaagsan. waxayna boorsada ka soo saartay lacag 200,000 oo riyaal ah. waxaa dhacday bay tiri lacagtii iyo duruuftii aniga aan ku jiray in aan fiiriyey lacagta iyo dunida aan indhaha ka xirtay waqtigaas, ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo aakhiradeeda. waxaa dhacday bay tiri marka in lacagtii aan qaatay kadib, waxay ugu tiri ninkan ayaa kula soo xiriirayo. ninkii waxaa dhacday bay tiri in uu ii keenay sixir, ii keenay, ugu yiri waxaad gelinaysaa sixir kastoon kuu keeno dumarka meydka ee aad dhaqayso, afkooda iyo farjigooda mid walbo markaas meeshii ku habboon. lacagtaas lacag ka badan waan ku siinaynaa. waxaa dhacday bay tiri in lacagtii mar walbo ay sii kordhaysay. waxaa dhacday bay tiri in aan galay nolol ka wanaagsan noloshii hore, oo ah in aan wax soo iibsan karo, in aan caruurteeda wax siin karo, in aan guri iyo nolol iyo wax walbo aan heli karo.
waxaa dhacday bay tiri shaydaankii wuxuu igu sii taageeray in aan shaqadii ku jiro. Kadib waxaa dhintay bay tiri ninkii saaxirka ahaa ee wixii ii keeni jiray. Muddo markii aan waayay kadibna waxaan dib usoo xasuustay wixii aan samayn jiray inay dembi ahaayeen. waxaan bilaabay tiri in ilaahay subxaanahu watacaala aan u toobad keeno. waxaan go'aansaday in aan tago beydka ilaahay si ilaahay subxaanahu watacaala aan u weydiisto dembi dhaaf. waxay tiri 7 mar aan meesha tagayna waxaan arki waayay kacbada. ninka sheekh ah wuxuu ku yiri ilaahay subxaanahu watacaala ayaad ku shirkisay, ilaahay subxaanahu watacaalaana uma dembi dhaafo qofka ku shirkiya ilaahay subxaanahu watacaala. wax aan kuugu jawaabana ma haayo, waxaad tahay qof ilaahay subxaanahu watacaala ku shirkisay. ciqaabkaagana ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ayaad ka helaysaa. waxa aad samaysay unbaad mirahooda guranaysaa. qisada sidaasay u dhacday. laakiin waanada iyo cibrada qisada ku sugan waxay tahay dad badan oo waxaa jira aad iimaankooda u yaryahay oo arrimahaas ama bi'ooyin kala duwan oo jahliga ku badan yahay ku nool, oo wixii xaaraam ahaana xalaal ka dhigta, wixii xalaal ahaana xaaraam u arka. marka waxaa mar walba muhiim ah qofka in uu ka fiirsado talaabo walba uu qaadayo inta uusan qaadin. maxaa dhacay mar walba oo aad talaabo qalad ah ama dhanka qaladka aad talaabo u qaado waa bidaayada heshiiska adiga iyo shaydaanka bilowgeeda. shaydaankuna mar haddii uu kugu shaqaysto wuxuu mar walba isku dayayaa in uu ku jeclaysiiyo shaqadan. waxaan ilaahay ka baryayaa qof walba oo ilaahay ku ibtileeyay in la sixiro in ilaahay subxaanahu watacaala sixirkii buriyo oo caafimaad ka siiyo. dadka saxarada ah ee dadka dhibaateeyana ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu ka qabto uu halaag u keeno. waa Abu Rawaan oo idin leh janaalka subscribe saarta, like-tana naga hilmaamina si fiidiyoyaasheena ay dad badan u gaaraan. aadna waa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.